السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي عشرية aqoonkaal.com عشر كلمات waxaan ku baran doonaa barnaamij loo yaqaan FTP. waxa laga yaabaa inaad isweydiisid waa maxay FTP maxaan uga baahanaa FTP. FTP waa barnaamij laga soo gaabiyo File Transfer Protocol. barnaamijka faylasha lagu xawilo. waa barnaamij suurtagal ka dhiga in faylasha lagaga xawilo computerka looguna xawilo internetka ama website-ka. waxaa jira barnaamijyo badan oo ah FTP oo la adeegsado. waxaan se casharkan ku adeegsan doonaa barnaamij lacag la'aan oo loo yaqaan FileZilla oo ka mid ah barnaamijyada waqtigan la adeegsado kuwa ugu badan oo la adeegsado. marka faylka markaan soo rogano waxaan arkaynaa sida loo isticmaalo barnaamijka FileZilla iyo qaabka uu shaqeeyo. marka kadib casharkii hore aan soo barnay HTML-ka ahaa indexkaan sameynay ama faylkaan sameynay ayaa waxaan ku xawilnaa internetka si loo akhriso dadweynuhu u arkaan waxaan daabac qornay. ma garatay marka hore aan soo rogano faylka ama barnaamijka FileZilla. haddaba saa u soo rogto barnaamijka FileZilla soo diyaarso browserkaaga sida Internet Explorer ama Firefox ama barnaamijka adeegsatid oo internet ku gashid. marka hadda waxaan adeegsanayaa Firefox. waxaa meesha laga baaro Google-ka waxaa ku qortaa FileZilla. marka enter dheh. inta badan webka ugu horeeya oo soo baxa weeye waxaa la yiraahdaa FileZilla Free FTP oo FTP lacag la'aan ah. eeg website waxa weeyaan waa filezilla-project.org. marka faylka halka riix waxaa marka ku soo baxaya website-ka FileZilla. laba nooc weeye nooca bidixda xiga iyo nooca midigta xiga. nooca midigta xiga isku taaban macnaha uma baahna hadda kaas waa server laakiin waxaan aadaynaa client-ka midka oo bidixda ah kan soo jeedid bidixda xiga. marka ka bidix riix wuxuu ku saaraya marka meesha laga soo rogayo waa Windows baan adeegsanayaa marka nambarka ugu dambeeya soo rogo bartaas waxa laga yaabaa nambarka inuu ka dameeyo oo mid ka casrisan soo baxay marka daawanayso cajaldan ku soo gaarto. marka barta riix marka wuxuu geenayaa website oo toos looga soo roganayo. haddii website-ka shaashadan yartaa soo jeedid shaashadan haddii ku soo furmi weydo marka linkigan riix ay ku qoran tahay direct link hadda way furantay waxa tiraahdaa save day. marka waxa irsug faylku soo rogmayaa waxaanu ku xiran tahay xawaaraha computerkaaga iyo khadka internetka adeegsanaysid. marka waxa yar baan sugeynaa uu soo rogmay samaartay. markuu dhamaado wuxuu soo gelayaa meesha la yiraahdo qaanada la yiraahdo download ama kana toos u riixi kartaa. wuxuuna soo dhex galaa sida caadiga ah qaanada download aan fiirino. qaanada download waa tan soo jeedid meeshuu computerkaaga ka save garay adiga garanaya laakiin aniga wuxuu geeyay download baan riixaysaa waa tan qaanadan uu dhex fadhiyaa. marka ka double click garay laba jeer riix waxaad tiraahdaa run. marka shaashad baa ku furmaysa shaashada furantay waxaad aqbashaa xeerka ku qoran meeshan waxaad tiraahdaa I agree ama waa aqbalay. marka bogga xiga next mar labaad mar saddexaad next. marka waxaad tiraahdaa rakib ama install. marka barnaamijkii FTP ee FileZilla wuxuu ku rakibmayaa computerkaaga. barnaamijkaas oo aan adeegsan doono inaan faylasha kaga xawilo computerka kuna geyno internetka ama computer meel durugsan yaala oo server ah. wax yar sug intuu dhamaanayo degdegin uu dhamaanayo mar dhow uu dhamaado soo jeedid markuu dhamaado waxa weeyaan waxaad tiraahdaa finish. haddii calka calaamadsan tahay horu ka daarmaya marka waxaad tiraahdaa finish ama dhamaystir. waxaa markaa ku furmay barnaamijka FileZilla. barnaamijka hadda ku muuqda oo soo baxay waa FileZilla waana FTP kaasoo suurto gelinaya in serverka ama khadka internetka lagu xawilo faylasha ku jira computerka. marka laba dhinac ka kooban yahay soo jeedo. dhinaca midigta ah waa serverka waa meel ka durugsan oo internet waxa laga yaabaa qaarad kale yaala computerkaas. dhinaca bidixdana waa computerkaaga. marka kan waa la durkin karaa dhinaca raba loo durkin karaa soo jeedid. meeshaan kor loo durkin karaa hoos loo durkin karaa. halkan wuxuu ka soo saari doonaa akhbaarta serverka markaan ku xiriirino ayuu ka soo saari doonaa. marka saan u adeegsano maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay macluumaad ku saabsan server. waxaa u baahan tahay macluumaad ku saabsan server. macluumaadka xagee lagu qori doonaa waxa lagu qori doonaa eeg bartaan computerka u eg dhanka bidix ee ugu sarreysa. marka hagaha loo dhaweeyo waxaa ka soo baxaya site manager taasoo macnaheedu yahay wax laga maamulaa ama laga hagaa website-ka. marka bartaas riix
barta marka riixdo wuxuu ku furmayaa shaashad oo ah site manager shaashadana ku furan soo jeedo marka waxaad tiraahdaa new site ama website cusub waan ku dareynaa moogta barta riix halkaas marka waxa ku qoranaysaa waxa xusuusan kartid waxay rabtaa haatee ama magaca website-ka tusaale ahaan laakiin waxa xusuusanaysaa hadhow waana ku ahaato tababar baan ku qornay tusaale ahaan waxaan u baahannahay marka hostiga waxa weeyaan waa martigeliye website yaala meel durugsan yaala inaan helno akhbaartiisii waxaan u baahannahay username oo magacii lagu gelayo website-kaasa iyo furihii intaasaan u baahannahay intaa inaan markaan soo helno ayaan meeshaan ku qoraynaa marka mid tusaale aan hayo ayaan ku qoraya marka hore si loogu qoraan ku tusayaa kadibna hadhow wax markaad website samaysatid waxaan arkaynaa sida website free loo sameeyo tusaale ahaan oo FTP looga helo markaad website-ka samaysatid saa akhbaarta halka ula timaadid marka hadda waxaa raacdaa qaabkaan u qoraayo ugu horreyn waxaan idhi waxaa loo baahan yahay hostigu waa martigeliye hostigu marka waxaa lagu qoraa bartaas magacii hostiga ama website-kii ku siiyey oo martigeliyaha ku ahaa waxaa laga hormariyaa FTP dhibic iyo magacii website-ka wuxuu doona ha ahaadee oo martigeliyaha ku ahaa mararka qaarkood website-ka magaciisa laga yaabaa inuu yahay haddaad website-ka gaar u keentid laakiin kuwa freega ah inta badan magacooda ayaa lagu qorayaa marka halkaas waxa weeye tusaale ahaan waxaa lagu qorayaa shirkadooda ana wax rabtaa haatee soo ma jeeda .com marka shirkaddu waxay noqon kartaa wixii la doono oo markaa ka samaysato ama shirkadda ka samaysatid martigeliyaha ka samaysatid website ka samaysatid ma noqonaysaa ma garatay marka hadda shirkaddan ka sameeyey mid bilaashaan ka sameeyey meeshaan waxaan ka sameeyey meel la yidhaahdo aan ku qorno halkaas waxaan u bixiyey waxay siiyeen ah py magacaasay siiyeen ma garatay markaan ka sameeyey waa arkaynaa si loo sameeyo daartid isla meesha waa ka samaysan kartaa macnaha mid bilaasha oo website bilaasha marka waa FTP dhibic byte 7 baa hadda la socota meesha 7 bay ugu dareen yaan ka ilaawin marka hadda waxaa laga yaabaa adiga inay halkaas lambar ka duwan ay ku siiyaan haddaa isla meesha ka samaysatid meelo badan oo free laga samaysta waa jiraan laakiin kana hadda tusaale usoo qaadanaynaa intaa ma garatay marka halkaa waxaa lagu qoray hostiga waxaa lagu qoray FTP dhibic iyo martigeliyihii .com ama .net wuxuu doona ahaadee intaa markaa samaysid meeshaan sida u deynaysaa waxaa laga dhigi karaa meeshaan secure waa laga dhigi karaa SFTP laakiin hadda kanaan ku tijaabinayna marka hore ilaa waa ku tababaranayna un keliya ma garatay bartaanay ku qorantaa anonymous bedel waxaa ka dhigtaa normal soo ma jeedid normal ka dhig marka normal ka dhigtid bartaas tan marka waxaa ka bedeli kartaa anonymouska ka baabiinaysa waxaa ku qoraysaa userkay ku siiyeen ama usernameka ama magacay ku siiyeen magac bay ku siinayaan oo username ah oo la adeegsado sida emailka horeeta magacaaga ama waxay ku siiyaan ama tiray ku siiyaan nambaro ah wuxuu doona ha ahaadee bay ku qoraysaa waxay iyagu ku siiyeen oo ah nambaradii ah halkan waxay ku qoraysaa furihii ama passwordkay ku siiyeen ma garatay markaas waxaa leedahay connect soo ma jeedid batoonka hoose way ku qorantahay connect markaa connect tiraahdid wuxuu toos ugu xiriirsamayaa website-kii internetka ku xiriirsamaya soo ma jeedid eeg dhinacan waa internetka dhinacana waa computerkaaga soo maartid dhinacan waxaa noo ku jira casharkeennii oo ahaa HTML-ka waa kana wuxuu noo ku jiray dhinacana ka fiirinaysa wuxuu ku jiray tababar soo maartid tababar xaggana waxaa ku jira khaanadihii serverka dhinaca xiga internetka wey marka dhinaca midigta ah ee serverka sida caadiga ah korka laguma shuba akhbaarta hadda kuwan waa kuu digayaan soo ma jeedid waxaa lagu shubaa htdocs websiyada qaybtooda waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay www ama web ama wax kale ku qoran tahay kuwa korkooda lagu shubaana waa jiraan laakiin hadda kan wuxuu ku leeyahay htdoc ku shub bartaasa riixaysa markaas waxaa u tegaysaa faylkii iyagu sameeyeen indexka ah iyagu mid bay samaynayaan oo markaad akoon ka samaysatid index bay samaynayaan waa aniga soo baranay indexku waa kan ugu muhiimsan website ka soo baxo soo maha waxaase dhici karta inuu ku yahay kan ay sameeyeen index.htm inaguna maxaan samaysanay index.html isku mid waaye laakiin elta unbaa ka maqan waa lagu qori karaa marka la qorayo html waxaa lagu qori karaa html ama htm inta badan elta lagu daraa inta badan oo sida casriga ah marka taa daarto iska masax tan internet ku jirtaan ka hadlayaa tirtir
marka kaagi indexkaagi baan u direynaa internetka si loogu diraa sida tahay waxa weeyaan faylkii waa raadinaysaa xagee ka raadina faylka wuxuu ku jiray khaanadeena buu ku jiray ahayd tusaale wuxuu aniga ugu jiray my document wuxuu kaga sii jiray inta ka baaraysaa soo jeedid soo socota markaas wuxuu ku jiray tababar marka heshid faylkii marka heshid baad waxa ku sameynaysaa double click laba jeer baan riixaysaa oo xiriira double click soo jeedid markaas wuxuu cararayaa ama aadayaa dhinaca internetka hadda marka website la booqdo oo la galo waxa la arkayaa qoraalkan qoranay oo soo sameynay internetka qof walba hada linkigaas isa waa akhrin karaa ma garatay marka aan wax yar eegno sidoo barnaamijkan u shaqeeyo haddaan ku celino tusaahan waxa weeyaan faylka waxbaan ka bedelay oo qoraalka HTML wax ka bedelay markaasaan save gareynay markaasaan ku soo noqonay meeshan markaan ku soo noqono aan sameyno sidaas faylkan xir waa sax xirtay faylkeena waxa la soo baxnay oo HTML ka ahaa waxbaan ka bedelay tusaalahan waxbaan ku darnay oo kaleeto halkan ku darnay waxaan ka ilaalinay oo kaleeto joogsi marka joogsi waan ku darnay markaasaan waxaan niri save markaan save niri markaan soo furo barnaamijka FTP oo shaashada noo yaala laba jeer riix double click oo furmo soo jeedo marka markuu ku furmo inta badan wuxuu xusuusanayaa wuxuu u dhameeyay ama shaashada u dhameysay oo lagu eegay buu xusuusanayaa marka hadda wuxuu noo joogaa meeshani tababar buu noo joogaa Soomaaliyeed bartaas wuxuu noo joogaa tababar indexkana waa noo muuqdaa haddaan isku doono inaan dirno hadda aan isku doono inaan dirno double click baan ku sameynaa ma dirmaayo soo jeedo sababtoo maxay tahay waayo internet kuma xiriirsana halka inoo koo muuqdo meel u dirno Soomaaliya si loo sameeyo marka ma dib baan ugu noqonaynaa inta meesha soo furno mar labaad eegayna maya iska xir midkan mar walba oo aad markii koowaad un baa u baahan inaad sadgarayso wixii ka dambeeya carabkan yarka maarta oo meeshii aan ka sameynay dhinaca kirligaxan kaasa riixaysa marka riixdid waxa ku furmaya magac wala baxdeeda marka bartaas riix Soomaaliyeed bartaas riixaysa tababar markaas uu toos u aadaya Soomaaliyeed waxa ku furmaya markaas website-kii marka diyaar buu ku yahay marka waxa sii gashaa htdocs faylkii mar labaad double click garee wuxuu ku leeyahay markaas digniin buu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay faylka dhinaca bidix yaala indexka ah mid la mid ah wuxuu yaalaa internetka ku jira ma ku dul qoraa akhbaarta marka haddii aad ogashahay haaba leedahay marka ku dul qor baa leedahay okay markaas ku dul qorayaa faylkii marka internetka la galo waxaan ka bedelnay oo ka muuqanaya marka ka soo baxaya xagga marka waxa u baahan tahay inaad ogaatid oo kaleeto eeg haddii faylal badan aad daawacaysid meeshan ay line ka gelayaan macnaa saf bay gelayaan queue haddii faylasha marka mid ka mid ah aad dirtid uusan daabacmin oo internetka aadin meeshan ka soo baxaya soo ma jeedid meeshan halkaas wax ku qormaya ku leeyahay faylkaas waxa weeyaan kuma aan guulaysan halkan waxa weeyaan inta faylo aad ku guulaysatay hadda hal fayl baan ku guulaysanay inaan daabacno haddaan marraba daabacno wuxuu ka dhigayaa labo soo jeedo laba jeer baan daabacnay faylkaas marka intii fayl ama intii goor aad daabacdid oo dirtid internetka ku dirtid buu ku sheegay meeshan oo lagu guulaysto ma garatay markaad diraysidna meesha u fiirso meeshan faylkii ku cararaya eeg markaan double click gareyno maarta halkaas ka muuqanaya dhinaca internetkana waa kana Soomaaliyeed kan waxa weeyaan waa computerka gudaha kana waxa weeyaan waa internetka marka waxaad tiraahdaa mar labaad okay dhe waa garatay waan filaya soo maaha waxaad kaloo arkaysaa haddii faylkan aad rabto inaad ku samayso refresh meeshan aad riixaysaa refresh dhaysa haddii aad rabto inaad tan iska qarisid oo meeshan aad shaashadan weynaysid tan qarisid meeshan aad riixaysaa Soomaaliyeed meeshan bartan taas eeg Soomaaliyeed haddii aad rabto inaad khaanadaha internet ku jira muujisid bartan aad riixaysaa maarta bartaas halkaas eeg khaanadan hadda waxa ka soo baxday inta khaanada ku jira internetka marka waa tan iska qarinaysa inta badan looma baahna inaad muujisid tana muhiim inay ku muuqato waayo meesha kala soo baxaysa khaanadaha computer ku jira weeye see loo muujiyaa see loo qariyaa taas waa tana halkan laga muujinaya eeg way qarsoontahay hadda soo ma jeedo laakiin marka halkan la kili garayo
way muuqanaysaa markaas la arkaya khaanadii ku jireen samarid wixii khaanada markay ku jira arkaysaa markaas aad kala soo baxaysaa meesha rabtay tababar buu ku jira hadda markaas aad diraysaa internet ku diraysaa haddii aragtay meesha inaad qarisid meeshan wuxuu ku tilmaamaysaa in akhbaartii la diray ee lagu guulaystay iyaguna qoraysa macnaa qoraal ahaan bay ku muujinaysaa marka la diro u fiirso halkaa fiir markaan dirayno okay baa tiri waxaa ku leedahay markaa hal file unbaa transfer lagu sameeyey wuuna guulaystay smart waxaana qaadatay 1 second taas waxay ku xiran tahay xawaaraha internetkaaga ma garatay haddii la rabo in la qariyo midaan bartana arriixiisa ay qarsoontay soo ma jeed ama muujinaysaa marka guud ahaan qaabka uu shaqeeyaa barnaamijka la yiraahdo FTP sidaas weeye ma garatay waana barnaamij run ahaantii aad u sahlan waxaad u baahan tahay uun inaad soo heshid serverka aad soo heshid akhbaartiisii markaa ku qoratid kadibna aad tiraahdo connect ma garatay waxaad dhici karta marka inaad isticmaashay computer aadan lahayn adigu oo qof kale leeyahay waxaad ku qori kartaa ama waxa weeyaan markaa meeshaan samaynaysid tan markaa samaynaysid baad waxaa ka baabiinaysaa passwordka markaas waxaa leedahay connect wixii ka dambeeya haddii la isku dayo marka in lagu xiriiriyo oo inta la yimaado lagu xiriiriyo soomaartid waxa weeyaan ma xiriirsamayo baaskii uu ku weydiinaya cabaar uu fikiraya wuxuu leeyahay serverka kumaana guulaysan ama haddaad rabto inaad masaxdid computer ka masaxdid meeshaan imaanaysaa waxaa leedahay tanaa calaamadeynaysaa tababarkii waxaa leedahay delete soomaartid markaas waxaa leedahay delete gare oo kaa baabay hadda inaan tirtiro ma rabo okay waa garatay baan filayaa passwordkii ugu celi markaa waxaad tiraahdaa connect markaas kuu gelayaa waxaa ka baaraysa markaa docs faylkii markaas aad u diraysaa markaasaa leedahay override haddaa rabti middan inayn ku soo noqon oo hubtid oo mar walba aad daabacday iyo mar dambe uusan ku weydiin waxaa leedahay eeg bartan mujda always use this action marka ficilkan halka ku yaala oo override inaan ku dul qoro mar walba isticmaal baa leedahay mogtay waayahay baan nidhi okay ma dhahaynaa marka dambe aad ku soo noqoto waa tiraahday u dir su-aashiina weydiin mayso ma jeedid wuu ku dul qoraya marka waa ogyahay inaad adigu og tahay inuu lagu dul qoro waxan waa fahamtaa maynaya marka halkaas waxa weeye waxaan ku gabagabanaynaa barnaamijka FTP kaliya waxaan casharka intayna dhammayn aan eegaynaa saan u samayno website oo meel lacag la'aan uga samayno si markaas aan u helno akhbaartii aan ku qoran lahayn akhbaartii serverka aan ku qoran lahayn halkan ku qoran lahayn hostigii iyo usernameka iyo passwordka saddexdaas aan u baahannahay waa fahamtaa maynaya haddaba si aan u samaysano website maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay seenaba waxa la yidhaahdo domainku waxa weeyaan waa diiwaanka websiteka sida magacaaga.com haddaa rabtid marka inaad website samaysatid ama gaar u geetid magacaa rabtid waa u bixinaysaa ama shirkadaada ama magacaa rabtid waa u bixinaysaa ma garatay marka kaas waxa waa domainka guud weeye domainka markaa gadatid waxaa u baahanta waxa la yidhaahdo martigeliya ama hostigu waxa weeyaan waxay kaydinayaan waxyaabihii lagu shubay websiteka akhbaartii lagu xirayay ayay kaydinayaan marka waxaa jira shirkado lacag la'aan kugu siinaya hosti laakiin maxay kaa faa'iidayaan waxay kaa faa'iidayaan waxay magacooda ayay kugu darsanayaan oo magacaaga ku dhijinayaan marka haddii magacaagu ahaan lahaa magacaaga.com ma samaynayaan waxay ku leeyihiin magacaaga dhibic shirkadii .com soo ma jeedid waayo waxay rabaan inay iyaguna kaa faa'iidaan magacoodii uu xayeysiis u noqdo intaas u noqoto waayo bilaash bay kugu siiyaan meelaad akhbaarta ku shubatid soo maaha marka saa u samaysatid website free saa u samaysatid waxaa internet ka baartaa waxaa la yidhaahdo free website host intaas ku baar macna internet ka baar waxaa jira hadda tusaale ahaan waxaan usoo qaadanaynaa saddexdan oo kaleeto markaan baaray saddexdaas ay soo baxay kuwa badan baa soo baxeen laakiin saddexdan ka soo qaadanaynaa baa ka mid ah midka ugu horeeya baan dooranaynaa soo maa kaasaan dooranaa waxaan ka samaysanaynaa website oo lacag la'aan ah marka websiteka muxuu inoo noqon doonaa magacaan u bixinno dhibic iyo shirkadda waxayna siiyaan iyaga inoo soo diray wax websiteku magaciisu noqonayo waa garataa maynaya marka soo diyaarso barnaamijka website ku geli jirtay ee browserka markaas ciwaanka waxaa ku qortaa ciwaankii aan soo aragnay bytehost.com aduu ka rabtaa ka samaysan kartaa laakiin kana hadda tusaale u soo qaadanaynaa marka waxaad tirahdaa enter waxaa muhiim ah inuu FTP leeyahay
website ka marka soo gashid waxa xigta meel ku qoran tahay dhinaca sare free hosting soo maartid waa martigeliye lacag la'aan ah riix halkaas marka eeg wuxuu leeyahay website free baan ku siinayaa buu leeyahay oo leh FTP taas muhiimad ah meesha rabto waa ka samaysan kartaa website laakiin waa inay ku lahaataa FTP saa ugu tababaratay FTP waa garataan filaya marka waxa weeye linkiga riix linkiga marka riixdid meeshan buuxbuuxi marka waxaan ku qornay waxaan ku qoray tusaale ahaan aqoon kaal furan u sameeyey kadibna waxaan qoray emailkii markaas waxaan doortay inaan ka dhigayo personal website baan ka dhigaynaa okay marka luqadda English u daa marka xarfahan soo jeedid xarfaha soo u qor adiga kuwa ka duwan buu siinaya waa mar walba kala duwan mar kasta soo gashay xarfa cusub buu siinaya si amaanka loo hubiyo way ma garatay markaas waxaad tiraahdaa register soo maartid marka barta riix markaas email buu ku soo diraya oo ku leeyahay ficilka aad u baahan tahay si website-kaaga oo ah account-kaaga oo ah website-ka waa kana wuxuu noqonayaa aqoonkaal dhibic intaas 7.com soo maartid marka maxaa sameynaysaa waa inaan bartaan riixdaa buu ku leeyahay waa inaan halkan riixdaa si marka loo xaqiijiyo waa riixaynaa bartaas markaas wuxuu kuu soo dirayaa emailka kuu soo diraya oo ku leeyahay uu kugu hambaliyeynayo inaad account-kii lagu sameeyey marka waxa muhiimada marka dhinaca hoose eeg waxa muhiim ah eeg waxa weeyaan intaasaa ka muhiimadda ugu weyn macnaha ka rabnay ahaa soo maartid saddexdaas waxa weeyaan waa file waa FTP server iyo FTP login oo userkii ah halkaas waa user macnaha FTP login kaas waa userkii iyo passwordkii soo maartid marka waxa qoraynaa hadhow FTP intaas marka meel ku qoro ama xusuusno ama copy ka samayso soo maartid markaas wax dib u noqonaysaa qaabkan u sameeyay FTP-gii soo ma xusatid eeg marka emailku soo diray wuxuu ku qoray FTP server marka waa kana hostigaas la mid ah marka serverna waa la dhahaa hosting waa la dhahaa ma garatay marka FTP server waa intuu ku qoray soo jeedo wuxuu ku qoray FTP intaas uu qoray 7 buu raacay meeshan adiga tuu ku soo diro waxa laga yaabaa inuu wax kale weeyay ma garatay khasab ma inuu 7 kaas la socdo waxa laga yaabaa number kale la socdo kadibna waxa weeyaan meeshan userka ah waa login ka soo maartid ama user buu ku dhahay ama login buu ku dhahay waa isku mid passwordkina waa meeshan ku qoran tahay waa furihii oo loo sameeyey ma garatay marka sidaas waxa ku haysataa website markaan hadhow booqano waxaan ku soo baxaya qoraalkan qoranay dhibicdan ku dirayna waa taas ma jeedid waa qoraalka hore HTML ka soo sameeyna waa kaas diyaar buu noo yahay soo internet ku jira sidaas waxaan ku soo barnay barnaamijka FTP oo file-ka laga qaadayo computerka oo lagu geeyo internetka mar hadda inta fahamtay samaantan aad soo daawatay casharada HTML waxaad markaa samaysaa website sidaan u sameeyno oo kale to hadda casharkan ugu sameeynay kadibna adeegso FTP qoraalka markaa ku daabac website-ka markaa asxaabtaada tus si markaa aad loo arko macnaha waxa qortay ama link ku daabac aqoonkaal.com qaybteeda comments-ka ee dhanka hoose ee webka aqoonkaal.com marka casharka akhriid hoostiisa waxa ku qoran comments meelaha ma fahamtay marka inta samaysid oo marka website-ka samaysid aad FTP ku daabacdid oo qoraalka internetka laga arko marka isku abaalmar koob shaah صح sidoo kale ha moogaan inaad rukumatid casharadan si casharka markaan daabaco uu kugu soo dhaco emailka toos ugu soo dhaco eeg dhanka midig ee website-ka aqoonkaal.com meesha ku qoranta rukumo aqoonkaal RSS marka riixdid bartaas waxa ku soo baxaya meel aad ku qorayso emailkaaga markaa bartaa ku qortid kadibna xarfahan aad qortid oo inta ku qortid xarfahan inta ku qoraysaa emailkaaga waa qoraysaa waxa la markaas subscribe macnaha ama rukumo markaas waxa ku soo dhacaysa emailka ugu horeysa markiiba ku soo dhacda linki baa la socda linkiga xaqiiji si loo ogaado in adigu marka hore emailka ku qortay qof kale ugu qoran emailkiisa marka emailka xaqiijisid oo kaliya gareysa linkiga wixii ka dambeeya mar labaad markaan qoraalka daawaco insha Allah waxa ku soo dhacaya email waa garatay waan filaya halkaas ayaan ku joojinaa casharka maantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq